بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا channelka saadka aakhiro. waxay noo soo socotay qiso ku saabsan gabar walaasheen ah oo musliintay iyadoo inoo maraysay qaybta afraad. waxayna markaasi inoo maraysay iyadoo gabadha walaasheen ay isku dayday inay isdisho kadibna ay koronto qabsatay, korontadana ay tuurtay oo sariir madaxa ku dhufatay. haddaba waxaad ku doontaan qaybtii shanaad. raxmo oo qisadeeda ka sii waramaysa ayaa waxay tiri, anigu waxaan xusuustay oo kaliya inaan hal mar qayliyay marka aan sariirta madaxa ku dhufanayay. markiiba dhakhtarka jaamacadda ayaa la geeyay. ardaydii ayaa la weydiiyay waxa dhacay. waxay dadku u sheegeen gabar lagu magacaabo Simrat Fatane oo haatanna la baxday raxmo markii ay muslintay oo reer Baxardaara oo toddobaadkii hore aragga beeshay in ay damacday inay isdisho balse ay badbaaday, dhaawacna uu soo gaadhay. waalidiinteeda oo meesha ka dhawaa oo ogaaday in aan indha beelay, hooyaday iyo aabbahay markiiba way miir daboolmeen oo halkii ayaa laga qaaday iyaga oo suuxsan. isbitaal ayaa dhammaanteen noola qaaday, aniga, hooyaday iyo aabbahay. hooyaday markiiba nasiib darro naxdintii ayay u dhimatay, balse aabbahay ayaa badbaaday. waxaana aabbahay loo sheegay inay xaaladdeedu weli fari ka qodneen, sidaa darteeda inuu hooyaday soo aaso kadibna soo laabto. aabbahay markii uu hooyaday soo aasay 3 maalmood kadib ayuu aabbahay Addis Ababa ku soo laabtay, maadaama aan aniga weli isbitaal ku jira oo aan natiijadeeda la ogaan. muddo 6 bilood ah waxaa la isiinayay intaan isbitaalka ku jiray biyaha glucose-ka oo keliya. 6 bilood kadib dhakhaatiirtii waxay go'aan ku gaadheen in isbitaalka la iga saaro oo la ii gudbiyo isbitaal ku yaala Baxardaar, maadaama xanuunkayga wax xal ah ay u waayeen, si xaajigayga oo ilmahaynta iyo daweyntayda oo uga dhibtoon. ilaahay amarkii subaxii oo ah maalinta la go'aamiyay in isbitaalka la iga saaro, waaga inta uusan baryin oo ay saacaddu marayso 2 dambe ee saqda dhexe, waxaa si lama filaana igu yimid dhakhaatiir ajaanib ah oo bukaanada oo dhan xaalkooda fiirinayay. dhakhtarkii cusbaa wuxuu dhakhaatiirta gacanta igu haysay uu weydiiyey, gabadhan imse maalmood ayay isbitaalkan jiiftaa? waxay u sheegeen maalmo ma ahee waxay jiiftaa 6 bilood, balse wax xal ay u helin aragga ay beeshay. dhakhtarkii aad ayuu uga cadhooday dhakhaatiirtii jawaabtooda. kombiyuutarka madaxa ma saarteen? maya ayay ku yidhaahdeen. aad buu uga xanaaqay, maxaad masaakiinta ugu ciyaaraysaan? dhakhtarkii cusbaa wuxuu markiiba qoray warqad uu ku amrayo in baaritaan buuxa la ii sameeyo, maadaama uu isbitaalka aan 6 bilood jiifay qalabka u dhammaystirnayna. waxaa la ii gudbiyey isbitaalka Tibabe oo qalabka u dhammaystiran yahay. baaritaan buuxa ayaana la ii sameeyey, markaasaa 2 ciladood la iga helay. waxaa la ogaaday in ilmihii ugu horreeyey calooshayda uu ku jiro iyo dhiigyari aad u ba'an inay hayso. marka waxay dhakhaatiirtu yidhaahdeen gabadha si aan caafimaadkeeda ula tacaalno, ilmaha uurka ku jira wuxuu ku dhagay lafdhabarta, waana meyd, wuxuuna u kori waayey dhiigyarida hooyada haysata awgeeda. sidaa darteed waa inaan ilmaha ka soo xaaqno ayay yidhaahdeen. waxayna igu shubeen dhiigga, maadaama qof dhiigyari hayso ilmaha aan laga soo saari karin. dhiigga la igu shubay inta uu jirkayga la falgalayay waxay qaadatay 3 bilood oo kale. 9 bilood ayaan markaasi isbitaalka ku jiraa. ilmaha 9 bilood calooshayda ku jiray maalinna ma dhaqaaqin ayay tiri raxma. wax astaana oo muujinaya inaan uur leeyahayna haba yaraatee ma dareemin. 9 bilood ayuuna uurkayga ku jira ayay tiri. xilli subaxnimo ah waxaa ii yimid dhakhtarkii. markii uu baaritaan ii sameeyay kadib wuxuu u tagay qoyskayga si uu uga dalbado in ay saxiixaan ilmaha si la iga soo saaro, iyaguna way ka ogolaadeen. marka waxaa ii yimid xaajigayga Axmed, wuxuuna igu yidhi, qof yar ayaa tahay, berina waad dhalaysaa, si adiga lagu badbaadiyo ilmaha in lagaa soo saaro ogolow. lafdhabartaada ayuu ku dhagan yahay, wuxuu u egyahay jiir yar, xataa suurad ilmanimo ma laha, marka naga ogolow ayuu igu yidhi xaajigayga. Axmed iyo dhakhtarka oo iskarab taagan ayaan ku idhi, doctor, ilmahan allihii igu abuuray ee intan calooshayda ku hayay ayaan tala saaranayaa. waxaana weydiiyey qoyskayga ma saxiixeen? haa, way saxiixeen ayuu iga jawaabay, balse saygaada ayaa diiday ayuu igu yidhi. waxaana u sheegay inuu xaajigayga igu yeedho, anigoo u sheegay caawa oo keliya inay fursad siiyaan. ilaahay haddii uu ii ogolaado in aan iska soo xaaqa waan idiin sheegayaa. allihii markii horeba abuuray ayaan xal ka sugayaa ayaan ku idhi. allaha u naxariistay xaajigayga Axmed ayaa ii yimid. waxaana ku idhi, dhakhaatiirta sidan ayay leeyihiin, iyaguna xagga alle noogama imanay aragtidooda ayay ka hadleen. marka haddii aan addoommo alle nahay oo ay ilaahay agtiisa camal wanaagsan aan ku leenahay, bal adigana ilaahay ila bari, ana ilaahan baryaya. leylka ayaan ilaahay ku baryaynaa. aniga maadaama aan tabar badan lahayn waxaan tukaday 2 rakac. ilaahay ayaan baryay anigoo ooynaya oo leh, ilaahayow, haddaan addoontaada ahay, waxdaaniyadaadana aan qirtay, oo si aan addoontaada u noqdo sanamyadii
iyo waddadii khaldanayd ee aan caabudaynayna dartaa aan uga soo gocay ilmaha calooshayda ku jira ii noolee oo sida ay dhakhaatiirtu sheegeen mayd uurkayga laga soo saaray ha ka dhigin ilaahayow adiga mooye cid kale dhibkayga uma sheeganayo ducadiina waan dhammaystay waa hagaag qaybtii shanaad ee qisadii gabadhi walaasheen soo muslintay iyo marxaladii ay soo martay halkaa inoo joogto waa inoo qaybta lixaad iyo channelka saadka aakhiro insha allah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد